sheegaan inay hogaaminayeen da'dii la baxday kala geyso oo uu abbaanduulo u ahaa nin la odhan jiray cali ninkaasoo markii dambe loo bixiyey cali kala geeye dagaalkii uu reerka ciisuhu la galay maamulkii aalaboori ayuuna hogaaminayey dagaalkaas dabadii da'dii kala geyso uu cali horjoogo u ahaa waxay baaqaa u jeediyeen beelihii soomaaliyeed ee geyigan ay wada degganaayeen ciisaha baaqaas oo ahaa in la samaysto xeer iyo maamul si kastaba ha ahaatee beelihii kuma aysan raacin fikraddii marka laga reebo reerka ciise oo kala geyso ay ka soo jeedday iyaga oo xoojiyey hindisihii da'daas la timid iskuna raacay in la sameeyo maamul reer ku leeyahay sidan buuna u dhacay maleeyaa u yeedhaa ku teliyey in la keeno dhigabadanaa tilmaamay in la helo xeeriyaa door biday in nala tashado xiddigayaa arrinka si gaar ah uga teliyey waana lagu wada raacay xiddigayaa soo jeediyey in arrinka sidan loo bilaabo magacyadan ayaan eegaynaa maleeyow maxaa tahay intaan u gelinna waxyaalihay sameeyeen magacyada maleeye yeedhe dhigabadane xeeriye iyo xiddigiye ayaan iftiimin doonaa inkastoon barnaamijyo hore aan ku iftiiminnay haddana si loo fahmo qormadan soo socota ayaan isdul taagaynaa waxa ay yihiin maleeye waa ninka ugu sarreeyey talada ciise xilligaasi waxa uuna taagnaa martabadda maanta ay taagan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalalka dunidu yeedhe waa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada halka uu taagan yahay ayuu taagnaa dhigabadane waa wasiirka sirdoonka iyo la socoshada dhaqdhaqaaqa waddanka xeeriye waa wasiirka garsoorka iyo ilaalinta caddaaladda xiddigaye waa wasiirka saadaalinta odoroska iyo xiddiginta samada iyo weliba wax ka sheegga deegaanka halkaas ayay taagnaayeen magacdaasi xilligaasi laakiin maanta dad badan ma yaqaannaan haddaba wixii raggaasi ay dhigeen ayaan sii ambaqaadaynaa nawri saxada ayaa la bilaabay hawsha maxaa yeelay waa bilowga maalmaha toddobaadka waa in laga qiyaas qaato cilmi ilaah taas oo ah in laga iftiin qaato abuurka alleh oo isagu abuuray 12 burji oo ka mid ah 28 hog ee dayaxa uu ku dhaxo 12 bilood oo ah xisaab ilaah kuwaasoo ku sarjaran yahay sannadka si uu aadamuhu u garto qaab socodka nolosha iyo jiritaankeeda xiddigaye oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi taa innagoo ka duulayn waa in aan yeelanno 12 aqal oo lagu sidkay 12 burji 12 oday oo arrimaha guddiya kuwaasi oo laga soo dhex xulay 12 aqal ee aan unugnay oo lagu sadqeeyey magacyada 12 burji 12 garsoor oo midkiiba bil yah 12 meelood oo loo fadhiista garsoorka oo dhalay 12 dixood amaba gallin oo ciisuhu leeyahay 12 qodob xeereed ayuu yidhi ninkii xiddigaye sidaa ayaa arrintii loo dhidbay jirriddiina loogu taagay halkaas weeyaan meesha uu ka soo jeedo xeerka sannadka loo fadhiyey buurta city wuxuu bilowday nawri saxada maalin axada